بسم الله الرحمن الرحيم دمان مسؤولين تمدشن isugu timi ay ugu horeeyeen wasiirada dawlayaasha wasiirka xigeenada xildhibaanada sharafta leh wasiiradii hore jananada mas'uuliyiinta Soomaaliyeed bahda caafimaadka qaybaheeda kala duwan inta halka ku sugan ee xafladan ka qayb galaysa iyo inta iyagoo kala ah ee hadda hospitaaladii iyo xarumihii ay wasiiradu inoo sharaxday ku hawl jira dhammaantiin horta waad salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahdana si gaaraanu u salaamaynaa una ictiraafaynaa doorkooda una bogaadinaynaa waxaa halkan iga muuqda dhalinyaro fara badan oo firfircoon oo siyaabo kala duwan aan ugu arko magaalada iyagoo u adeegaya bulshadooda waxaa ka mid ah cadow oo halka fadhiya gobolka Banaadir jooga iyo qaar kale oo fara badan oo aanu shararka arrimaha bulshada isugu iman jirnay ma uu ahayn wasiirku laga bilaabo waxa jira gabay uu hadraawi maray oo aan aad ugu soo celceliyay madalaha markaan joogo leadershipka marka laga hadlayo oo uu yiraahdo gurgurshaagu awr buu ka yahay rarasho gaadiida garwadeenku ruux buu ka yahay geelan dirireeda inta uu wuxuu yiri inkastuu galool mudhay ka yahay dharaha gaagaaban inta ruux gaarsiin kara way gundhowdahay galladuna waxay saaran tahay wax isu geegeyn marka wasiiradu inay xusto ninka iridda marka u horeysa ay aroortii la kulanto iyo gabadha xafiiska u joogta waxay muujinaysaa hogaaminteeda waxa raba inaan ku bilaabo inta inaan barnaamijyada iyo siyaasadaha gelin horta wasiirada saan isku baranay 5 sano iyo dhowr bilood ka hor aan 4 baan xasuustaa wanagii sanadna ku darsanay ayaa labada iyaduba aanu meel wada degnay laba wasiir cusub baan nahay ana arrimaha bulshada iyo caafimaadka wiil dhalinyaro ah waanu deegaan ka soo wada jeedno ba aad ii soo raadiyay wixii wasiiradan u baahan war wasiiradu meel bay degan maxaad ka rabtaa baan ku wuxuu yiri waxaan waliba anu gobol Sanaag la yiraahdo Cargaab la yiraahdo buralideesu ka yimi wuxuu yiri waxaan xamar u yimi inaan maro imtixaan caafimaad oo Turkidu ay dadka marsiiso oo dhakhtarnimo lagu barto oo marka maxaad wasiirada ka rabtaa baan ku yiri wuxuu yiri waxaan rabaa inay cadaalad fasho oo imtixaan ka fadhiisto oo hadba wixii qalinkayga iyo maskaxdayda ii goyso laysiiyo horta wasiiradii baan u keenay waxay tiri anigu waxba ku eexan maaye waa ku ballan qaaday cadaalad inaad u marto imtixaankii wiilkii maanta horta waa dhakhtar buuxa oo u adeega dadka Soomaaliyeed digfeer buu ku tababartay Turkiga uu tagay takhassus la soo siiyay maanta dalkiisa iyo dadkiisa u adeega saddex kalena waa bay soo raacdo waa ka soo raacday deegaanada waxay taasi ku muujinaysaa number 1 kana waxa galay wiil yaro iskuulaadka xamar wax ku soo bartay waxay taasi ku tusaysaa anaga ragii naga horeeyay dhaqarsha halkan fadhiye taliyihii ragii naga horeeyay hablii naga horeeyay waxaanu ka maqalnaa dalka waxna baray qaranka waxna baray marka sibay nooga lixjecla badan yihiin hadda waxaad moodaa itifaalihi inuu muuqdo waxaan wasiirad aad kaaga mahad celinayaa anigoo xogogaal u ahaa duruufihii aad ku soo shaqaysay caafimaadku sidiisaba investment buu ku shaqeeyaa iyo maalgelin iyo mataqaanay tacab iyo dawladaha mar dhaweed baanu sheekaysanaynay caam ahaan caalamul thalithka ama dawladahan hadda horumaraya waxa laga rabaa budgetka guud ee dawladda in 8% ilaa 20 ugu yaraan la geliyo caafimaadka iyana inay laba hadda cagacagaynayaan bay noo sheegeen taasi waxay ka turjumaysaa ma aha talo xumo ee waxay ka turjumaysaa tamar darro haddii talada aynu guud ahaan dawladda fadhiisino muranadii iyo beele dhexmar jiray baan ogaa golaha wasiirada waxay ka ahayd champion u taagan mabaadiida hawsha loo igmaray waxa taa u helisay covid oo iyana culayskeeda Mareykan iyo meelihii inaga waaweynaa ay qaadi kari waayeen hadiya habeen bay ilaa taagnay annagoo golaha joognayna oran jirta war xidda mask wasiir duruufaad ku soo shaqeysay baan ogahay ilaahay ha ka abaal mariyo dadaalkii weynaad gashay iyo waqtiga adkaad umada ka soo sameeyay
wasiirka cusub aqoon badan isuma lihin laakiin anigu sideedaba qofka hadalkiisaaban aad wax uga fahmaa nin dhowrsoon oo dhakhtarna ah xildhibaanna ah waayaha dalkana wax badan ka og ayuu iila egyahay oo waxaan u malaynayaa halkii aad dhigtay meel kasii fog inuu gaarsiin doono isaga iyo wasiirada la socda maryan iyo maxamed amiin oo xildhibaanna waa garab taagan yihiin dhakhtarkii weynaa ee wasiirka isna wasaaradda ka halkaas uu fadhiyaa oo in badan golaha naga wacyigeliyey dhammaantiin waan idin mahadcelinaya aan dul istaago caafimaadka iyo arrimaha bulshada iyo waxbarashadu sibay isugu lamaan yihiin siyaabo fara badanna waan u wada shaqayn jirnay masalooyin baan idinla wadaagayaa beri baa waxaa loo yeedhay wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka iyo arrimaha bulshadaba kulan waxaanu la galnay nimanka World Bank la yidhaahdo waxayna yidhahdeen maxay idin qorshaa waan cusubnahay qorshayaasheedu waxaanu la wadaagnay inaanu rabno inaanu isbitaale la wareegno inaanu rabno inaanu la wareegno iskuullo aniguna aan xaruntii Jarmalka farsamada gacanta iyo siidam iyo waxa damacsannahay marka heerka iyagu anagu awoodaydu waxay taagan tahay bal hospitaal ma laga shaqaysan karaa ma la dhaqan gelin karaa inuu shaqeeyo markaliin bayba projector meel nagu qabtayna waxay yiraahdeen waxa tihiin dhowr iyo 10 milyan 10 sano ka bacdina marka saadaasha la eego double population kale noqonaya intaasoo bilyan oo dollar baa la rabaa inaad caafimaadkiina gelisaan primary-ga waxbarashada shaqo abuurka maxay idin qorshaa anana ilaacadaha waxaanu galad marka ka dhiganaynay mushaharkii shaqaalahaanu bixinay iyo askarta ninba marka wuxuu yiri dulduleelka aqalkayga ee dirarka soo hooray iyo dooxa aan aalo iyo deylo lumisteeda markaan dayay amuraha buu yiri daacado nafteeda daral ku socota dar ilaahay baa waxba ku hirgalaanay laakiin aadamihiina inuu tabaabashaysto la rabaa waxaan ku soo ururinayaa oo aan tarana ku bixinayaa maadaama anigu dhakhtar meehi inkastoo bariyaha qaar aan microbiology baran jiray sababna hore arrimahan bulshada in indho ballaaran lagu eego oo caafimaadku a comprehensive approach to health la qaato oo si dhow aad u wada shaqaysaan wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha bulshada wasaaradda biyaha taqoyska iyo haweenka oo heer dawladeed ruuxa Soomaaliga ah sideeba xuquuqdiisa xaq buu qofku u leeyahay inuu meel caafimaad ku noolaado inuu bad qabo dastuurka xusaya waxaan rabnaa markaa si wada jira inaad wada shaqaysaan sida caamka xafiiska ra'iisul wasaaruhu wuxuu suurto geliyaa in la qabto gudiyadii aad garanaysaan ee arrimaha bulshada ee arrimaha si wada ogol loo eegayay badina ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo ra'iisul wasaaruhu arrimaha hogaamin bay ku leeyihiin waxaan idin ballan qaadaynaa inaanu idin fududeyno wax walba suurtagal ah oo inaad waajibaadkiina gudataan idin fududeynay in dan xariis leh ayaa lagu eegayaa bahada caafimaadka iyo waxbarashada maadaama iyaga dadaaladooda ay ku wajahan yihiin inta ugu nugul inclusive politics ku moogtay siyaasiyiinta la maareynayaa oo la raba in ay kuraastooda si nabad ah ku soo qaataan laakiin caafimaadka iyo daryeelku madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ee dhawaan la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan isu raacnay Baydhabo waxaan aadnay cidhifyada magaalada dhallaanka iyo hooyooyinku si u tabaalaysan yihiin dhawaan baan indhahay ku soo aragnay mar walba waxaan rabnaa markaynu shaqaynayno inaynu xoogay suudadka iyo meelaha quruxda badan aynaan maskaxda ku hayne horta sawiradaas mar walba ayna hor joogaan insha Allah ta'ala waxaan ku rajo weynahay 300 milyan maanta haday gaadhay 1 bilyan in caafimaadka dhawaan aad gaarsiin doontaan waxaan rabaa laakiin Soomaalida inaan xasuusiyo horta bilaayiinka World Bank u keenay geeda lagama soo gurin gabadh yaro Swedish iyo oday shaqaystay oo Finnish lacagtoodii weeyay waxaan rabaa inaan wasiirad kugu kordhiyo amaantii iyo bogaarintii aad u soo gudbisay Hormuud iyo Dahabshiil iyo ganacsatada dawooyinka ka shaqeeya Soomaaliyeed doorkii ay qaateen muwaadinka Soomaaliyeedna waxa barbar taala inuu cashuur bixiyo dawladdu waxa ay kala rogrogtaa ee ka waxaystana ka qaada kaan waxaysana siisa waa cashuurtaasun
waxaa la rabaa arrimaha dakhliga ilaan haddii kale beylan nimankan inay isku ama cilmi hadda isku qatalmaan lama rabay hablahane arrinta dakhli ururinta iyo kobcinta dhaqaaluhu inay saabayn taban iyo mid toganba ku leedahay caafimaadka waanu idinla shaqayn doonaa haddii 18 aanan gaadhayn horta 8 baan idinla gaadhsiin doonaa insha allahu tacaala waxaan kaloo rabaa anigu dastuurkan ka shaqayn jiray waxaan ogahay dooda dhex taalla wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha gobollada waxaan ogahay wasaaradda waxbarashada iyo kuwa maamul goboleedyada dooda dhex taalla waxaa la rabaa inaad hawsha qaarna idinku qaadataan oo sharci dejinta maxaa la yidhahday siyaasadaha guud jihaynta jaangoynta maal raadinta ilaa waa tan hadda adduunkunbaa marti loo yahay ayaamahani inaad idinku qaadataan awooddana aada u daadejisaan degmada iyo gobolka iyo adeega dadka u dhow oo ayadan isku qabsan maanta oo dhan anaa tan shaqo idinku filan wada haysataan wasaaraddu intaasaan u soo sheegay wasiiro marka haddaad sharciga iyo maamulka iyo maaraynta caafimaadka Soomaaliya waxa la yiraahdaa afka Frenchiga the governance of health in a federal system horta dawladna kaligeed adduunka dawlad kama nihin federaalna kaligeed ma nihin xaalad caafimaadna kaligeed lama tacalno oo lama mataqaanay maxallino adduun weynahana hababka ugu haboon ee uu hirgeliyay wax markaad eegtaan hal lagu dabaqo dalkeena xaaladeedna hal eego shaqada inteeda badan hal la daadajiyo hal la empower gareeyo agaasimaha tuulada jooga iyo maxaa la yiraahday qofka MSH ka halka haysta laakiin shaqadii municipality ay qaban lahayd haddaad adigu isku soo ururiso xogay halka hirdama ka dhacaya wixii kale ee farsamo iyo siyaasadaha la jihaynayna sharciyad iyo siyaasad iyo qorshe wax lagu hagaa waxaan aad idinku markaa ka shaqaynaysaan waxa laga soo dheegaya qorshaha qaranka Soomaaliyeed wasiiradu aad bay ugu dagaalantay in la geliyo in sha Allah ta'ala xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo arrimaha aamiyada u leeyihiin iyo dawladda dhanna way idin garab istaagaysaa caafimaadku halku bulshadeena ugu jiro iyo nuglaashiyaha ku hareeraysan baanu ka dareen qabnaa guul baan idin rajaynayaa in sha Allah ta'ala intaasaynu ku soo koobaynaa waa mahadsantiin